qofkii qof muslim ee kurba ka feedo ilaahay u sina kurbadiis feede marka sheekh maxamedna kow nin sheegi wanabluukum bisharri walkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun marka shar iyo khayr iska jaribe wallahi marka geega haddii adi ay koo maqanta waxaas ogaadaase min walaalkaay ka jirta ujeedada ilaahay kalayana wala kala ma waxaas fiiriyaye yacni hadba mise mar walbaba anuu naftaanu sida alanka يعني جواب نغانو أسفيريا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الكرام كل وحي ورقه والدماي وجيدة كل ليسنك كوينة والنشاق waxay ataa walaalka oo keenso baahdi inaas garab shay naqato marka war wixii la dhahlahay wal dhihi magana waxaan ka daran lahay walaaga qofka la anqabada koro beesa kale shay in la dhiiba ma beesadaana wal baahan inaas dhiibto waxa kale oo meesha ka jira wajiga hadii wala qabadaawna inaas wala ka qabato waayo wejiga naftiis sadaqas gale sidees ka gala kore yacni hadda waxaan kolley inka soo wada waragnay cunugan baahidaas oo lacagta la ambaahanya in laga soo qayb qaado waxaa la ka yaabee dadka barshay inay wejiye kala yihiin dad wala haayo dad madax dad meel dhahay oo jagooyin meel haysadaan oo arrintan wala ka qabada koraan oo kaafiya koraan magana waxaan qadar lahay waxay ataa marka in sha Allah ta'ala qof walba inaysan ka qayb qaadado wixii karaan shay xataa haddii naqada lahayti waji ahaan inaysan ka qayb qaadado beesa wal dhiibooyo mise wal dhiibooyo mar isweydiiyo haddii gadaal alagnagano waxaas aragaase maalka hadda la dhiibooyo waxaa u jiraana wajiyaal badan oo la kabiyooyo ومع ذلك markii gadaal la xisaabiyo oo wajiyadaas la fiiriyana waxa uu maanta anka xaqnimo badana tan oo kale meel saaran tarbayata walaalka oo garab shay roogsatay wiilka oo garab shay as roogsatay marka waxaan dhahlahay ani qofkii rabo geega inaas xataa baarinimo aan suubiyo waalidkii dhali arintan walka faa'iideysada kore waxayna qadaasi sadaqa sangnaysato waalidka axaadiis badan meesha laga soo sheegay waxa uu ka mid ah axaadiistaas qofkii qof muslim ee kurba ka feedo ilaahay u sina kurbadiis feede marka sheekh maxamedna kow nin sheegi wanabluukum bisharri walkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun marka shar iyo khayr iska jaribe wallahi marka geega haddii adi ay koo maqanta waxaas ogaadaase min walaalkaay ka jirta ujeedada ilaahay kalayana wala kala ma waxaas fiiriyaye yacni hadba mise mar walbaba anuu naftaanu sida alanka yani jawaab naqaano asfiiriya marka ani codkay waxaan ka dareeye codkii culummada iyo dhammaan dadka walaalaha oo meeshan isinka kooyeen marka howlna haddii la ansoo roogsado in la gudi galo waa fayle waxaanan badiya wala kala ma fadhiga in la isinka kooyo oo qofkii jiranay la soo fadheesiyo يعني والدكي soo fadheedo oo dadkii ehelka ahay wixii xaafada roogi dhama ay kooyaan wala kala ma waxa uu badatay social media markii la roogo barnaamijyada noocan oo kale يعني in dad ba shaqo ka dhigadaan laakiin kan macnadeedu waxay ataa يعني wixii inaas jiro inaan markhaati ka naqano oon taskiyoyno oon cadayno baahidaas inay jirto marka dadka walaalaha muslimiinta adduunyada meel ka soo karoogan anna codka waxaan ka darayay marka oo baaqahan ana soo jeediyaane qof walba taagtiis inaysan ka qayb qaadado qofkii yani gacan ka jeysada karo oo jaab ahaan ka jeysada karo qofkii waji shay wala ka qabada karo qofkii duca wala ka qabada karo in alka gaabine hada billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akhukum mahmoud sid caalin